Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka Soomaalida iyo caalamka waxaa ugu dooran israasaaseen maanta duhurnimadii ka dhacday degmada Doolow ee gobolka Gedo. Ciidamada dawladda ee halkaasi geysay kuwa xasilinta ee hore u joogay degmada Doolow ayaana dagaalamay. Khasaaraha iyo sida ay ku bilaabatay israasaaseenta ayaan faahfaahin idinkaga haynaa. dowladda Soomaaliya maanta laba diyaaradood oo laga kala leeyahay Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya ayay hawada ka celisay xilli ay ku soo xadgudbeen baa la yiri hawada Soomaaliya oo xanibaad muddo 2 toddobaad ah maantana ka bilaabatay dawladdu ay soo saartay diyaaradahaas iyo halkii ay ka degi rabeen rakaabkii ay wadeen meelihii ay ka yimaadeen ay dib ugu laabteen. xildhibaanada baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta lagu dhawaaqay madasha lagu soo xulay iyo beelaha ay ka soo kala jeedaan xildhibaanadaasi oo qaarkood dhalinyaro u badan. khilaafka wasiir Cawad iyo wasiir taliyaha nabad sugidda isku beel yihiin oo keentay in meel halis ay gaarto iyadoo xaaladdu ay hadda maraysa baa la yiri in madaxda qaranka la isku dacweeyo. Siciidan iyo wasiiradii nabad iyo nolol ka socday oo garow shir albaabada u xirnaa saacada ku yeeshay natiijada ka soo baxday kulankooda ayaan idin haynaa. duqii hore ee Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed wuxuu ku guuleystay ka shaqaynta in amisom ciidankooda laga saaro goob xirada xalana ka tirsan oo dad shacab ay deganaayeen. warka amisom ay soo saareen iyadana muxuu ahaa jaakad qarax ismiidaamin lagu fulin lahaana ciidamada ammaanka ayaa howlgal qorshaysan waxay kaga fuliyeen magaalada Gaalkacyo waana la soo qabtay jaakadaasi. galmudug faahfaahin ayay laamahooda amniga ka bixiyeen qaraxaas iyo qaabka loo fashilayay. qodobka dibaddana waxaan idin haynaa Shiinaha waxay sheegeen inay u diyaar garoobeen haddii mar kale kiiska cudurka coronaviruska laga helo gudaha dalkooda xilli la leeyahay in gebi ahaanba laga waayay dalkaas qof qaba caabuqa COVID-19. u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaad nagala socotaan shabakada wararka maanta. taariikhdu waxay ku beegan tahay 19 bisha 3 ee Maarso sanada 2020. warkii oo fidsan aan ku bilowno. waxaa maanta duhurnimadii israasaaseen kooban ay ka dhacday degmada Doolow ee gobolka Gedo. Doolow waxay xuduud dhinaca Itoobiya la wadaagtaa dalka Soomaaliya waxaana halkaasi ku dagaalamay sida la sheegay ciidamada gorgor ee dhawaan dawladda halkaasi u daabushay ciidamada xasilinta la magac baxay ee halkaas hore u joogay. israasaaseyntan ayaa ka dhalatay isqabqabsi la sheegay in deeq mucaawimo ah ay ka dambeysay inkastoo faahfaahin badan aan la ogeyn. khasaare ayaa jira balse waxaana si faahfaahsan aan weli loo sheegin tirada waxyeelada soo kala gaartay ciidamada dagaalamay. taliye ku-xigeenka nabad sugidda Cabdullaahi Kulane ayaa la sheegay in ciidamada gorgor uu geeyay halkaas iyadoona muddooyinkii dambe xiisado soo laabtay ay ka jireen magaalada Doolow ee gobolka Gedo. tan iyo markii ciidamada dawladda federaalka ay halkaasi qabsadeen waxaa jirtay in xitaa qaab beeleed la isku ataago ama weeraro qorshaysan ciidamada dhexdooda abaabulaan. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dawladda federaalka baxsad ka ah ayaa waxa uu sheegay in mar-uun ay dib u qabsan doonaan maamulka Jubbaland magaalooyinka Beled Xaawo, Doolow iyo deegaanada kale oo ay ceelwaq ka mid tahay. hadda waxaa ku sugan dhammaanba deegaanadaas dawladda federaalka ee Soomaaliya. ma hayno war intaasi ka baxsan iyadoona gudoomiyaha gobolka Gedo xilligan ku magacaaban Cismaan Nuur Xaaji Macalimo uu ka gaabsaday inuu wax faahfaahin warbaahinta siiyo israasaaseyntan maanta ka dhacday duhurnimadii degmada Doolow. qaybaha hore ayaa daawanaysaan warbaahinta wararka maanta. markana kulan aan hore loo sii shaacin ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Garow ee caasimadda Puntland waxaana uu dhex maray baa la yiri wasiirada xukuumadda nabad iyo nolol ka socday ee shirkii Garow dhawaan ka qayb galay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. wasiiradan ayaa waxaa hogaaminaya Axmed Ciise Cawad iyagoona kala hadlay Siciid Dani sidii dawladda federaalka iyo waliba maamulkiisa ay u heshiisiin lahaayeen. khilaafka dawladda iyo maamulka Puntland oo la dhameeyay waa wabuucda ugu weyn oo ay wasiiradaas u socdaan. wadahadalada waxa ay markii dambe noqdeen kuwa ay ku biireen waxgaradka isimada iyo culimaadudiinka reer Puntland kuwaas oo golaha wasiirada xubnaha ku matalayay dawladda federaalka Puntland ee shirka Garow dhawaan kaga qayb galay ay sheegeen inay diyaar u yihiin dawladda in waxa ay ku qaldan tahay la wadaagaan Puntlandna laga rabo in far soo taagan aysan noqon. xubnaha golaha wasiirada ee wadahadalada yeeshay
ayaa waxa ay madaxweyne Siciid Dani ka dalbadeen inuu magaalada Muqdisho u soo raaco oo la dhameeyo xasarada siyaasadeed ee taagan. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Madoobe ayaa haddii uu la heshiiyo Siciid Dani madaxweyne Farmaajo isagana la filaya in wada hadalkaas uu noqdo mid uu qaato xaaladana la qaboojiyo. Ma hayno faahfaahin intaas ka badan oo ku saabsan shirkaas ay yeesheen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirada ay u direen magaalada Garowe iyo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani, inkastoo iyadadiile laga muujiyay in xurgufta jirta la dhameeyo. waa hagaag khilaaf xoog leh ayaa soo kala dhex galay sida la sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo wasiir dowlaha wasaaraddaas Cabdulqaadir Axmed Kheyr. warqada isburinaya ayaana ay soo saareen oo mid waliba uu sheeganayo awood ahaan inuu isticmaalayo magacaabidda warqadahaas. wareegtada koobaad ayaa xilka looga qaaday agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda, halka tan kalena lagu buriyay warqadaas oo tilmaamaysa xilka qaadista inay tahay mid waxba kama jiraan. xafiiska wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cabdulqaadir Axmed Kheyr ayaa warqada koobaad oo ka soo baxday waxa xisaabiyaha guud ee qaranka la sheegay in lagu gudbiyay saxiixa Shirwac Cabdullaahi Ibraahim oo warqadaas loogu magacaabay inuu noqdo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. balse wax yar kadib warqad ka soo baxday xafiiska wasiir Cawad ayaa lagula socodsiiyey guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka dowladda in lagu buriyay magacaabista iyo saxiixa uu gudbiyey wasiir dowlaha Cabdulqaadir Kheyr. sidoo kale wasiir Cawad ayaa dhammaan hay-adaha la socodsiiyey warqadii hore in ay tahay mid aan shaqaynayn oo la burburiyey, isagoo xusay qoraalkiisana ku muujiyey in ay ku soo baxday warqadaas sifo sharci darro ah. taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ay isku hayb yihiin Cabdulqaadir Axmed Kheyr wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa dadka qaar waxay sheegeen in sidaas oo kale uu taageero ka haysto isagana wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ilaa hadda ma hayno war ka soo baxay ra'iisul wasaare Kheyr oo loogu kala dab qaadayo labada wasiir ee ishaye. dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay awoodeeda iyadoona hay-adda saadaasha hawada Soomaaliya ay hawada ka celisay maanta oo khamiis ahayd diyaarad rakaab siday oo ka soo duushay magaalada Abu Dhabi ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabtana laga leeyahay. waxaana diyaaraddaas ay doonaysay inay caga dhigato magaalada Hargeysa garoonka diyaaradaha Cigaal ee Somaliland. waxaase ila xogogaala ay xaqiijiyeen in rakaabka diyaaradda kula noqotay magaalada Dubai kadib soo degitaankeeda markii loo diiday. arrintan waxay imaanaysaa kadib 3 cisho ka hor maalintii Isniinta isbuucan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar uu diiday in diyaaradaha caalamiga ah ay duulimaadyo samayn karaan waxa ka dambeeya 12 saqda dhexe 18 bisha marka ay dhamaato oo maalinta Khamiista maanta ah wixii loo gaaro diyaaradaha caalamiga duulimaadyo aysan ka samayn karin gudaha dalka imaan karinna kana duuli karin. iyadoo taas ay jirto oo diyaaradda Fly Dubai la hor istaagay maanta inay ka degto Hargeysa ayaa haddana shirkadda Ethiopian Airlines waxa ay ku xadgudubtay qarannimada Soomaaliya iyadoo soo saartay warbixin ay ku leedahay waxaan joojinay duulimaadyadii caalamiga ahaa wadamada ay Soomaaliya ka mid ahayd, balse ay sheegtay in Somaliland ay tagi doonto. duulimaadyadii caadiga ahaa ee Somaliland waxay ahaan doonaan sidoodii oo waxba iskama bedelin maadaama ay shaqeynayaan garoomada diyaaradaha Somaliland ayaa lagu yiri qoraalka shirkadda duulimaadyada ee Ethiopian Airlines. dhinaca kale doornimadii maanta ayaa diyaarad Ethiopian Airlines lahayd oo ka digi lahayd magaalada Hargeysa garoonkeeda diyaaradaha ee Cigaal International. waxaa la sheegay in dowladda federaalka ay amartay hawadana ay dib uga celisay ka hor inta aysan caga dhigan buubay deegaanka Hargeysa. wararka waxay sheegayaan in ay noqonayso diyaaradii labaad xilli saaka iyana loo diiday shirkadda duulimaadyada ee Fly Dubai oo dalka isku tagga laga leeyahay inay ka degto magaalada Hargeysa. awoodda dowladda federaalka ayaa hadda muuqata marka la eego maamulka dhinaca hawada Soomaaliya. waa tahay daawadayaal weli waxaad la socotaan warbaahinta wararka maanta, bal markana aanu eegno magaalada Baydhabo. baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta lagu dhawaaqay iyadoona
liiska xildhibaanada la shaaciyey ee baarlamaankaas ka mid noqonaya. haddaba xildhibaanada oo 95 ay ka kooban yihiin ayaa waxaa kasoo dhex muuqday dhalinyaro u badan kuwa wax bartay. guddiga ayaa waxay sheegeen in wadatashi dheer ay yeesheen kadib odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ay soo xuleen liiska xildhibaanadan oo muddo badan ay buuq ka taagnayd qaabka loo soo xulaayo. waxaa ka mid ah cusmaan cabdi muuse oo beesha silcis ka soo jeeda, cali isaaq cumar geelidle, maxamed nuur maxamed geelidle, aamino isaaq maxamed geelidle. cawrmale waxaa ka soo jeeda cabdisalaan cabdulaahi basaay, ibraahim macalin cali oo laysaan ka soo jeeda, maxamed ibraahim aadan laysaan ayuu ka soo jeedaa, maxamed nuur isaaq luwaay, xasan ibraahim xasan luwaay, doctor cabdi rashiid maxamed nuur jiroon ayuu ka soo jeedaa qabiilka la yidhaahdo xasan aadan cali oo jiroona, ismaaciil axmed cabdulaahi oo qabiilka eymid ka soo jeeda, cabdulaahi isaaq macalin oo wanjeel ka soo jeeda, yunis cabdiraxmaan maxamed oo laysaan ka soo jeeda, bare aadan cabdi oo biimaal gaadsan ka soo jeeda, shukri faarax cali oo luwaay ka soo jeeda, cabdifitaax maxamed cali oo wacdaan ka soo jeeda qabiilka la yidhaahdo, muxyidiin xaaji cadow oo beesha ayle ka soo jeedo, aadan maxamed cusmaan oo gawaaweyn ka soo jeeda, yuusuf cabdinuur suuri oo biimaal daa-uud ka soo jeeda, abikar nuur cabdulaahi oo biimaal sacad ka soo jeeda, mustaf axmed iidow oo biimaal daa-uud ka soo jeeda, aweys xuseen macalin oo hintire ka soo jeeda, midkeer macalin aadan oo qoomaal ka soo jeeda, maxamuud sheekh maaxi yuusuf oo biimaal isniin ka soo jeeda, biimaal isniin isagana qabiilka la yidhaahdo waxaa ka soo jeeda cabdilfataax cali axmed, biimaal dabrube waxaa ka soo jeeda binti ibraahim cali gabadha la yidhaahdo, imraan cali cabdi oo jilible ah, aadan cali sheekh oo jilible ah, mukhtaar maxamed aadan ajuuraan ayuu ka soo jeeda, irshaad maxamed aadan oo haddame ka soo jeeda. sidaasi la mid a haddama waxaa ka soo jeeda maxamuud cabdi cali, mukhtaar maxamuud maxamed, cusmaan buulla macalin, xasan maxamed cabdilkariim oo gasaare gude ka soo jeeda, weelmuge oo qabiilka ka soo jeeda isagana ajuuraan ayuu ka baxaa, aadan macalin mustafa ayaa ka mid a. eelaay waxaa ka soo jeeda xildhibaanada kale ah maxamed cali xasan, bishaare cali nuur, cabdiqaadir xasan cabdiraxmaan joker ayaa lagu magacaaba ayaa lagu naanaysaa. reer baraa waxaa ka soo jeeda shamse maxamed yarow, maxamed cusmaan xaaji cabdow oo jiiddo ka soo jeeda. sidaasi la mida beesha jiiddo waxaa ka soo jeeda ibraahim cabdulle cabdi ibraahim cabdi cabdiraxmaan, axmed madoobe nuunow dabare ayuu ka soo jeedaa. sidaasi la mid a beesha dabare waxaa ka soo jeeda aamine cabdilxafiid ibraahim, cusmaan nuur aadan jajeelle waxaa ka soo jeeda cabdimaalig ibraahim cabdulle, heledi waxaa ka soo jeeda cabdalla cali cabdi. xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya shakhsiyaadka kale ee laga xusi karo xildhibaanada soo baxay waxaa ka mid a mayow mustafa xasan oo 5 caleemood ka soo jeeda, maxamed xasan maxamed oo maxamed qays loo yaqaano bahda saxaafadda ayuu ka mid ahaa, wuxuu ka soo jeedaa beesha wadalaan waxaana uu ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya. intaas ayaynu uga gudbaynaa daawadayaal xildhibaanada oo tiro badan awgeed islamarkaana aan dhammaystiri karin 95-ka. haddana waxaa hadda la leeyahay durbaba waxaa timid in buuq laga keenay xildhibaanadii qaabka loogu dhawaaqay. shabakada wararka maanta ayaad weli daawanaysaan. markana wararka naga soo gaarayo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in lagu fashiliyey weerar qarax la damacsanaa in lagu weeraro sida la sheegay magaalada gaalkacyo xarumo ku yaala koonfurta magaaladaas ayaana lagu qabtay jaakad qarax ismidaamin qof inuu ku fuliyo rabay, iyadoona magaaladaas qaybta ay galmudug ka arrimiso ay ahayd meesha weerarka la doonayay in laga fuliyo. saraakiil ka tirsan booliiska galmudug ayaa waxay sheegeen in jaakadan oo lagu dhex qariyay guri ku yaala magaalada gaalkacyo uu leeyahay nin ganacsado ah, xogtaasna ay heleen ciidamada kadib saacadana ay soo qabteen, faahfaahinadana ay dib ka soo gudbin doonaan. howlgalka waxaa wadajir u fuliyey qaybta 21aad ciidankooda iyo kuwa booliiska galmudug, ha yeeshee saraakiisha hogaaminaysay ma aysan sheegin magaca ninka ganacsadaha ee gurigiisa laga soo dhex qabtay jaakadaas walxaha qarxa ay ku xirnaayeen. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid meelaha fogfog laga hago. baashaan ay ujeedaan waa waxyaalaha qarxa, waa jaakad iyo qalabkii waxyaalihii qarxayay. waxyaalaha ujeedaan waa waxyaalihii qarxayay
fiilooyinkoodii iyo baterigoodii alaabtaas wixii lagu qarxinayay waa kuwaana lagu kala bedelahayay oo lagu qarxiyo gacanta laga qarxinayay saaka ayaa waxaa noo yimid dadka shacabka oo magaalada sharafta badan leh waxay noo soo sheegeen waxyaalahan inay meel yaalliin ciidanka booliiska ayaa wax ku guulaystay inuu soo furfuro waxaas oo gacanta ku soo dhigo si aan loogu waxyeelayn dadka shacabka ah iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed annaga guul bay noo tahay inaan qabanno iyo horumar aan gaarnay ee ciidanka booliiska uu ku guulaysto inuu qabto waxyaalaha noocaan oo kaleeta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sawir lagu soo bandhigay jaakada iyo weliba fiilooyin waxyaabo lagu rakibay la arki karay taasoo ciidamadu ay sheegeen in ilaahay fadligiis iyo wada shaqaynta shicibka ay lahaayeen awgeed lagu soo bandhigay qaraxaas oo aan qarxinna gacanta lagu soo dhigay qodobka dibadda intaanu aadin daawadayaal bal aan ka hormariyo howlgalka amisom ayaa la sheegayaa inay wareejiyeen mas-uuliyadda xarun ay ku noolaayeen dad rayida oo ka tirsanaa xerada amisom magaalada muqdisho amisom waxay sheegeen wareejinta qaybtaas qorshaha kala guurka ay ka mid tahay mas-uuliyadda amniga ee lagu wareejinayo dowladda soomaaliya waxaana ciidanka amisom ay ka guureen meel ku dhow xerada xalane oo ay deganaayeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir taabit cabdi maxamed ayaa la sheegay inay ka qayb qaateen sidii dadka lahaa loogu wareejin lahaa dhul deegaan ah oo dhexda kaga yaala xerada xalane taasoo markii dambe suurto gashay in amisom ay ka wareegaan oo dadkii lahaa lagu wareejiyo ha yeeshee goobta la wareejiyey waxay ahayd meel ay ku noolaayeen dad rayid u badan oo dumar iyo carruura oo xiritaankeeda ay codsadeen mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya kadib markii ay soo baxeen eeda ku saabsan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagu eedeeyey taliska amisom ciidankooda in ay ka sameeyaan halkaasi dhinaca kale war ka soo baxay xafiiska unsom ee qaramada midoobay ayaa lagu dalbaday guddina loo saaray baaritaan dhaba oo lagu sameeyo madaafiic habeennimadii xalay lagu garaacay xerada xalane xafiiska danjiri james swan wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ka soo baxay ayaana lagu sheegay in guddigan loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan in ay soo saaraan madaafiicdii habeennimadii xalay lagu garaacay xerada xalane sida ay u fududaatay madaafiicdaas in lagu garaaco xerada xalane qodobka dibadda ayaan markana eegina daawadayaal warbaahinta wararka maanta ayaana la socotaan dowladda shiinaha waxay sheegtay in mar kale haddii caabuqa coronaviruska qof qaba waddankeeda lagu arko ay u diyaargarowday in ay si degdega uga hortagto shiinaha waxay gebi ahaanba ku dhawaaqday 24 saac ka hor in qofkii ugu dambeeyey caabuqa corona uu ka caafimaaday taas oo ay sheegtay in dadaal badan ay dhaqaatiirta u galeen ugu dambeyntii 4 cisho 4 bil kadib ay ku guulaysteen in la joojiyo caabuqa corona guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawanayseen shabakada wararka maanta intaan wararkan oo kale dib isku arki doono nabadgelyo